kulankan geek wariyaasha ka howlgalo magaalada Baydhabo oo Lagaatay Madaxwaynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo basiweyn ku hadalay dhibaatadii oo lanka jeeshada gudaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya taasoo suweyn iyo lanku ka hadalay inta lagu raajiyo tacadiid iyo dhibaatadii oo lanka jeeyo markii ogolaan gudaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya kulankan geek wariyaasha ka howlgalo magaalada Baydhabo oo la kulmay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qayb ku hayay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka warfaafinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugaasasna Cabdi Maxamed ahana soo inta badan lagu hadalay inta lagu raabo doona waana dhibaatada ninka jeeshada doona markii ogolaan gudaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu horeyn wayba meel ku hadalay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudiin Xasan Xusni uu soo sheegay inta madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu baahanyay inta wal ku qabada dhibaatada hoon la ka wariyaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya ka koowaad waxa uu ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed halkaas oo runtii kulan aad muhiim noogu ahaa aynu kula yeelanay wasiirka warfaafinta iyo wasiir ku-xigeenka waxyaabaha kulankaasi aan u doorbidnay oo wasaaradda noogu wacdayna waxay ahayd maadaama Koonfur Galbeed isbedel ballaaran uu ka dhacay wasaaradihii dib ay u shaqo bilaabayaan markii madaxweyne cusub la doortay isbarasho iyo sidii wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo saxaafadda madax bannaan iyo kuwa xindaabka dawladda ku jiraba ay wada shaqeyn dhab u yeelan lahaayeen waxyaabaha hore looga wada shaqeynayay waxay ahayd Koonfur Galbeed horumarkeeda xasilinta iyo deganaanshaha saxaafadda agaasimayaasha warbaahinta idaacadaha iyo telefishinada ayaa ka soo qayb galay warbaahinta deegaanka ah iyo wakiil wareednada warbaahinta kala duwan marka kulankaasi wuxuu noo ahaa kulan aad muhiim noogu ahaa safgarad iyo natiijo ayuu ku soo dhamaaday iyo wada shaqeyn aynu yeelan doono sidii horey bay u jirtay waxaan ugu mahadnaqaynaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka kulanka martiqaadka ay noo fidiyeen maanta kulanka labaad wuxuu ahaa kulan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka aynu hogaaminayeen oo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagaraan aynu la qaadanay waxyaabaha isna looga wada hadlay waxay ahayd wada shaqeyn waxyaabihii tabasha xagga saxaafadda dhibaato ay qabeen oo kale inay la wadaageen xagga nabadgelyada iyo dhanka gabagabadii waba meel ku hadlay wasiirka warfaafinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ugaasasna Cabdi Maxamed oo sheegay in dilanka dhibaato doon wariyaalka ka howlgalo magaalada Baydhabo gudaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya waana lan sameeyay doon wariyaalka ka howlgalo magaalada Baydhabo sharciga ka howlgalayaan gudaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya laguna raadin lahaa fursado ay ku heli karaan tababarada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin sida loo ogyahay Soomaaliya wariyaasha Soomaaliyeed meel walba joogan dhibaatooyin badan iyo duruufo badan ay ku shaqeeyaan iyagoo shaqeynaya qaarkood u dhintaan loo dhaawacaa nolol dhibaateeya ayadoo guud ahaanba kulankaasna warbaahinta Koonfur Galbeed Soomaaliya wariyaashoodu ay ugu tacsiyeeyeen wariyaashii intii 4 sano ahayd ee maamulkii hore uu jiray dhibaatada ay ka soo gaartay haday taa dhimashada ee dhaawaca intaba sidoo kale anagoo wada soconno warbaahinta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ururka suxufiyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliyaba waxaan xafiiskiisa howlka shirarka nagu qaabilay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo markii ugu horeysay tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya saxaafadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay si toos ah ay ula kulanto iyadoo ay horkacayso wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynuhuna dabcan sida uu inoo sheegay wuxuu diyaar u yahay inuu guud ahaanba garab istaago wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed iyo warbaahinta Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaanba iyo inuu garab weyn siin doono ururka suxufiyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ognahay in wada shaqeyn wanaagsan ay ka dhaxayso wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinta Koonfur Galbeed Soomaaliya intaba dhaliilo way iska jiri karaan Soomaaliya xaalkeedu sidii la rabay ma aha wariyaasha duruufo badan ay ku shaqeeyaan dhaliilo badan oo dawladda iyo wariyaasha dhankooda oo kulankii madaxweynaha la isdhaafsado waa jireen madaxweynaha iyo anaguba waxaan ballan qaadnay in si dhow aan ula shaqeyn doono warbaahinta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyaguna waxay ballan qaadeen inay la shaqeyn doonaan dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo horumarinta barnaamijyada saxaafadeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo in laga wada shaqeeyo haday taa dhinaca amniga dhaqaalaha siyaasadda intaba inay la hareer istaagi doonaan dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan sir rajaynaynaa ilaahay idinkii 4 sano la soo shaqeeyayna si wanaagsan baan u soo wada shaqeynay xilligan cusub oo inoo bilowday aniguna mar labaad anigii wasiir ku-xigeenkayga aan wasaaradda Ibraahim Macalimo TV-ga caalamiga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo